الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي بان كبر يا سبحانه وتعالى إنه ميسانك حسناتك إنه صار وحين يسوشيغينه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu naga dhigo min aladiina yastamicuuna alqowla fayattabicuuna axsanah. waxaan ku faraxsanahay kulankaynu hawada ku kulannay, aniguna saas oo kale ayaan idin jecelahay. ilaahayna waxaan ka baryayaa subxaanahu wa tacaala inuu harkiisa inoo hareeyo maalintuu dadka alla daraaddii isu jecel u hadhayn doono. intaa markaan ka imaado qoysku usradu waa qoyskaynu inagu naqaanaa. waxa weeye meesha uu qofku ka hagaago ama qaranka muslimka ah ama qabiiladuba. haddii qoysku uu hagaago ummaddu way hagaagaysa, hadduu qoysku qalloocdo ama burburana ummaddu way burburaysa. waayo ubadku marka lagu soo tabcee iyagoo qurux badan bannaanka la keeno, cid waliba way ku faraxdaa, waalidka iyo ummadda kaleba. iyaga oo guriga dhexdiisa ku dunsan oo ku baaba'ay markay bannaanka u soo baxaanna waa lala yaabaa. waxyaabaha usradda ama qoyska farxadda iyo raaxada ku nool islaamka dhexdiisa, gundhiga iyo asaaska waa noloshooda waxaa ka mida wujuubu alcamali bilkitaabi wa sunna, inay qoysku ku dhaqmayaan kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam. hadduu odayga yahay iyo hadday xaaska tahay iyo hadday ubadka tahay iyo hadday waalidka la jooga tahayba. oo halka diinta la iskaga xukumaya maaha dowladnimada saroo qurhe, qoyskaasaa laga soo bilaabaya, qofka laga bilaabaya qoyska saasay u soconaysa. qofkuna sidiisaba cid ka weyni ma jirto kitaabka ilaahay inay raacdo iyo cid laga dhaafaya toona. ilaahay baa wuxu uhi wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrihim. qof mu'mina rag iyo dumar mid kasta ha ahaadee midna suuragal uma aha, xalaalna uma aha, umana habboona ilaahay iyo rasuulku haddii ay wax xukumaan inuu isagu ikhtiyaar yeesho oo adduunkaas sidaa yeela iyo aniga sidaasay ila tahay iyo maxaan ku dhahdaa qof hebelba saasuu sameeyey iyo waxaasoo dhammi way iska hadhayaan mar haddii kitaabka qur-aanka ah daliilkii laga helo iyo sunnadii. marka qoyska barakada leh ee saciidka ah ee liibaanay waa qoyska loo kitaab dayo. kitaabka ayaa lagu wadayaa guriga qaybihiisa kala duwan oo nolol qalloocan oo diinta khilaafsan waa laga ilaalinaya. waa asalka koobaad. gundhiga labaad waxa weeye an yasuuda alxubu jamiica afraadi اlusra. qoyska ku wada nool goobtan ama dadka qoyska ah ee xaaska ah waa inuu kalgacalku dhexdooda caan ka yahay. oo haddii ay yihiin waalidka iyo haddii ay yihiin caruurta isku wada celi. usro waynu naqaanaa qoyskaase kalgacal waa inuu jiraa, jacaylka dabiiciga ah. diintuna way dhiiri gelinaysaa inuu diin iyo ilaahay daraaddii noqdo. nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxaynu ogsoonnahay sida uu tilmaamayo xadiidka axmed uu warinaya saxiixa ah. waxa uu leeyahay xubiba ilaya min dunyaakum adiibu waannisaa. anigu adduunyadiinaa waxaan jecelahay, waxaa adduunya haysaan waxaan ugu jecelahay dumarkayga iyo udgoonka. inta badanna dee udgoonku halka uu ka yimaado iyaga ayaa u sababa, ama jidhkooda ha ku diyaariyeen ama dharkooda ama gurigooda ama deegaankooda. udgoonka had iyo jeer innaga ay noola taaganoo waa laba arrimood oo isku xidhan. wixii udgoonna waan jecelahay ayuu nebi moxamed yihi sala allahu calayhi wasalam, xaasaskaygana waan jecelahay. taasuu markaa dadkana wuxuu ugu sheegayaa si uu tusaale u noqdo ay ugu daydaan. waxaynu ognahay nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam siduu caruurtiisa u jeclaa. inantiisa faatima bintu rasuuli sala allahu calayhi wasalam
marka ay halkaa ka soo baxday u timaada wuu isu taagi jiray nebigu sala allahu calayhi wasalam kolkaasuu halkaa uu fadhiisinaya iyaduna kolka uu u tago intay isu taagtay aabbaheed soo dhoweyso ayaa halka ay fadhida ay fadhiisin jirtay waa qofkii uu dhalay buu saa ula dhaqmayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaynu ogsoonnahay caruurtiisa yaryar siduu u dhunkanayo awowga u ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa kalgacalka iyo jacaylku waa waxa isu jiidaya xabagta isu haysa u ah qoyska iyo wada jirkiisa waxa saddexaadoo waxyaabaha gundhiga ama tiirarka ka mida cadamu ifshaa'i alasraar inaan wixii sirta qoyska la faafinin caruurtu inay faafiyaan maaha ninku inuu faafiyo maaha xaasku inay faafiso maaha dadka ehelka ah ee goobtaa wada joogaa sirta qoysku waa sir ka daranta qaranka sirta qaranka si loo ilaaliyo si la midaba ta qoyskana loo ilaalinayaa nebiguna sala allahu calayhi wasalam waa digay oo digniin buu bixiyey inaan arrintaa ama sirtaasi qoysku aanay bixin markaasaa nebigu wuxuu uhi sala allahu calayh wasalam xadiidkii saxiixu muslim ku sugnaa inna min ashari nnaasi mansilatan yowma alqiyaama alrajulu yufdii ila imra'atihi wa tufdii ilayhi huma yunshiru axaduhumaa sira saaxibih maalinta qiyaamaha dadka ugu liita ee ugu shar badan waxa weeye nin iyo ruux dumar ahoo galmo ku kulmay oo xaas ah oo midibo ka kale sirtiisa iyo arrimihii gaarka ahay dhexdooda uu ka sheekaynayo kuwaasaa ugu shar badan riwaayo kale abi saciid uu warinaya waxayd fa inamaa mathalu daalika shayطaanu laqiya shayطaana tusaalahoodu wuxuu ka dhigayn shaydaanad kale shaarica ka helay oo muraadkiisa ka dhammaystay waa laba qof oo lagu shabahay shaydaan weliba galmo samaynaya weliba meel cidloo dadku wada meel bannaanoo dadku wada arkaya ku samaynaya arrin aad u khatar badan waa waxyaabaha keena qoysku inuu burburo marka uu ogaado ninku inay xaasku ka sheekaynaysa arrimihii u gaarka ahaa ama iyadu ay ogaato waxaa ka baxaya xabagtii isu haystay qoyska oo ah hiqada iyo kalsoonida labada qof haddii ay isku kalsoonaan waayaan noloshii baan dhadhan iyo macaan yeelanayn raaxana yeelan mayso ilaa midibo ka kaloo hangool faraarala iskaga hayaa iska ilaalinaya waxaa ka mid a waxyaabaha asaasiyaadka ah wujuubu sacyi rabbi اlusra calaa طalabi risqi اlxalaal ninka qoyska mas-uulka ka ah odayga reerka ahi waa inuu taagan yahay oo uu baadi doonaa reerku wixii uu ku noolaan lahaa iyo arsaaqadii xalaasha ahayd iyo baahi bay dadku leeyihin wixii dabooli lahaa waa inuu taagan yahay oo aanu odhanin dowlad gaalaabaa xil qaaday ama waxeedii iyo kiishadeedii bay cunaysaa ama reerkoodii bay ku tiirsan tahay waxaasi shaqayn maayo waxaa shaqaynaya xilkaa ilaahay uu saaray inuu ninku isu taago oo uu ka soo baxo ilaahay baa wuxuu uhi alrijaalu qawaamuuna cala annisaa bima fadala allahu bacdahum calaa bacdi wa bima anfaquu min amwaalihim raggu mas-uuliyadda waxay ku yeesheen kuna maamul wanaagsan yihin baa ilaahay uhi masruufkii iyo waxbixintay leeyihin oo quudkii iyo reerku wuxuu ku noolaan lahaa ninku saaran yahay waxalla wixii dhaqaalo la xidhiidhoo dhan mar kale ilaahay waxa uu tilmaamay doorka ninku uu leeyahy iyo doorka hooyadu ay leedahay waalwaalidaatu yurdicna awlaadahunna xawlayni kaamilayni liman araada an yutima aradaaca hooyooyinku ha jaqsiiyaan baa ilaahay uhi caruurta 2 sano ha jaqsiiyaan wacala almawluudi lahu risquhunna wa kiswatuhunna bilmacruuf kii caruurta loo dhalay ee aabbaha ahaa ay caruurtu ku abtirsanaysay isagana waxaa lagu leeyahay ubadkaa iyo ooryaha inuu biiliyo qur-aankaa ilaahay sidaa uu ku caddeeyey subxaana wa tacaala mar kale fii suurati dalaaq ilaahay wuxuu ku uhi liyunfiq duu sacatin min sacati qof waliba wuxuu hayo reerkiisa ha ku masruufo hakrashaha iska ilaaliyo waxuu hakradaayay jir inuu ka haysto reerkiisa ilaa korkaaga biyo lagama dhowro lagama hakrado markaa nusuustaa iyo aayadahaas waxay noo caddaynayaan ninku markuu kaalin buuxis noqdo reerku wixii ay ku noolaan lahaayeen uu la diyaar yahay waxyaabaha uu reerku ku sii jirayo weeye haddii kale waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan maxaanu ku qabnaa waxbaba nama siiyo
ma aragno intifaac nooma leh hana dhaafo waxyaabaha keenay ka mid حديث كلام صحيح مسلم كسر النبي وحكول صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو من يعود قفك الدم بوحة وغفلا إنه ضيعه دتك أو مصروفه دتك لجو أجا الكيسي أو بدكيسي أو رديسي إنه مصروف وعيه وبعد كي برفك وراء مرمايو أو مالس كفريسته أو السرعان الترحمادان هدانو الدنب كلبة صمينين انت هساد دنب وقفلا بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا واجب كتغيه أرنت الشناد قندقية أساسيات كالنقون يسير هيركو كسي تشري كراوة حوي البعد عن الظلم في الأسرة قويس كدحدي سوين لقبت بادية وحي قرد الرأة وحي قرد الرأة يدو ضره يحد قدم يظلم وين لقد داية والنبي يقول صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة شيء قردر هذا الله يلاوى قد عريال قيامة مالنا دفتين وباهن تهيبك وقوم مدوبانيس الدنيا دي آخرة بقى ماشي هديد ظلمية ماده ومدو لذلك بقى رسولك صلى الله عليه وسلم waxa uu ka warramay ninku hadii uu xaasas leeyahay oo labada xaas midkood uu leexdo maalinta qiyaamaha uu xiimanaya iyada oo dhinaciisu qalooco mar hadii uu labadooda midkood uu u eexday oo eexdaasi ay ka timid xadiidku abi waa saxiix wuxuu ku sugan yahay nasaai waana saxiix min xadiith abi hurayra radiyallahu anhu marka calaama laga muujiyay qofkii dulmiga sameeyay adduunyadii ooridiisa dulmiyayo qiyaamaha halkaas laga arkaya kaasi waxa la oranayaa waa inkaar qabihii ooridiisa dulmiyay xataa wax kale iska daayo caruurta dhexdooda ayaynu u cadaalad sameeynayna si aynu cadaaladda ugu rabayno asxaabigii la oran jiray Bashiir ayaa inankiisii Nucmaan buu waxsiiyay caruurta kalena muusiin nabigu Allah hadla wuxuu ittaqullaha wa'dilu bayna awlaadikum ولله كعب صدق عرورتي نوع عدالة سمية صحيح مسلم بيك سجين حديثكم وحديث صحيح إلهي كعب صدق عرورته وعدالة سمية أداد دونتين العذ وحسيسه عرورته وعدالة سمية ويلا شيء قبلها ديك لو ما لها أنت عقدت قادان سبب النقانة يسئن استلان إنك واحد شري شرته وحلا لا والقلي وحلا يحدون حري قف سيجارة وحلاسية أنت كلا لقضيه waxa kamidoo lixaad wujuub al-afwi an al-atharaat qoysku si uu wada noolaan karo oo aan u burburin waa in la iska dhaafaa waxa la yiraahdo simbirixooyinka qofku waa bani aadam dhacdhacu iska imanaya iyo dhaliisho qoyskiina maatidii baa ku badan noloshuna waa nolol waa taayir wareegayo kale taayirkuna markuu wareegayo xawli buu jaraya sida daraadeed dhaliilo way imanaysa marka dhaliisha inta faraha badan in badan waa in la iska dhaafa ilaahay baa wuxuu xuudi al-afwa wa'mur bil 'urf afiska qaado wanaagana dadka far deeydad ciidaad cafida waxa u fiican ooridaada iyo caruurtaada ama odaygaaga iyo caruurtaada arinta ninkii iyo xaaska ka dhaxaysay meherkiya markuu la ka hadlay ilaahay wuxuu aan ta'fu aqrabu lit-taqwa alla ka cabsiga waxa u dhow inay iscafidaan oo wixii ay ku leedahay isagu uu yiraahdo waan ku daayay iyaduna wixii ay ku leedahay ay tiraahdo waan ku daayay ay iska dhaaf oo aanay imanin meesha waxa gaalada in badan ay ku dhaqmaanayaan maxaan xaq u leeyahay waxaas waa xaqayga iyo ma dhaafayo فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح نفط بخيل لماذا اسكغب بدن با إلهي وريه عفسك إيا صلحا أيا لغو دويا oo xaydha lagu subko ee lagu daweeyaa waxa weeye cafiska iyo sulxa marka hadiya jeer waxa iska dhacda caruurtu inaanay de boqolkiiba boqol ma saxnaan karaan xaasku ma saxnaan karto odaygu ma saxnaan karo haduu qofku boqolkiiba 80 wanaagsan yahay de 20ka uu dhacdhacayo circirayo de waa in lagu qaataa تاسو نبي نبريا صلى الله عليه وسلم حديث كي مسلم كسغنا من حديث أبي هريرة لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر
على معناه على معنى ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وحوري نينكو هديو حاس كيسا ارتيو حمين يو عاين يو دبن هديو أخلاق دقار كيت كنعه حتى إن بدن وكتش علانا يا بدن واحد ايكتا قفكني وانا اقول لي فرا بدن سيدا ليليه سيدا عيسى هذا لا فكرته فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره شركي خير كلا بدي بإلهي وشاقي لكن ما بورا الكاغا مركز ايجي سينا قلو عيسى وينيسى صارته أمام مايكروسكوب وين صارته وحيسى وانا قانا أذرك ويدو وحيابها والشيطان كدتك كقفة إذا استابي كم تعال أرنت التضباط وحوي الحرص على عدم التخاصم بين الأفراد وبين أفراد الأسرة وإن هذه يتير لغير يا قيس كدحديسة مرنك وحا لا يدعاضو يدود يتشافا ترق يسقبسك يسجيتشيتك وماشي الحق يو دولا قد يتنياو marka sidaas uu yahay iyo ma aha iyo maxay u noqon weeyday Soomaalidu markay muranka bilaa macnaha ka waramayeen baa waxay yiraahdeen laba nin baa waxay isku dileen dayixu uu soo baxay iyo hadduu soo baxay makabaad u tolay haddaan u tolo miyaad ka qaadi macnaha muranka caqiimka ah ee aan waxba faa'iido lahayn taasa laga waramaya taasina waxay keeni kartaaba inay dadku kala dudaan نبينا صلى الله عليه وسلم وحو كدغي qoyska dhexdiisa inay intay murmaan kala dudaan caruurtii oo waalidku kala dudaan ama ninkii odaygu kala dudaan dudmada waxa la yiraahdaa in laga warwareego ila dadku way isu baahan yihiin waa beer waa zawjayn waa laba isku lamaan ma kala maarmayaan حديث صحيح مسلم كسغنا النبي waxa uu ku min حديث ابي ايوب لا يحل للمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال qofka xalaal ma aha inuu walaalkiisa muslimka ah ka dudu ka maqnaado 3 habeen wax ka badan markiiba waa inuu soo noqdaa waa nasiib darro inaad qoysaska qaar kood arkayso iyagoo ku oranaya mabaanaan wada hadal sanado qaar baad arkaysaa ku oranaya anuuna maqsin baan seexdaa lamaanahayga kalena maqsin buu seexdaa ciyaalkuna meel bay seexdaan dee waan isku daba wareegnaa ama waa la isdhaafaa dee karaan adagaa dadkaas أنا إن إلهي إنك حشودان أخلاق ونكسرنا كل رقماوي وأنا وحيابها كيني كرا عبادة هذا إن لقوا سوء عليه نبي يقول صلى الله عليه وسلم حديث كوا مسلم كسجى من حديث أبي هريرة يعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا خميس كستي سنين كست عمل هذا إلهي بالله بندقال هرجية qof kastoon gaal ahayn waa loo dhaafaa ilaa labada qof ee xurgufi dhexdooda ay taala iyo xumaani mooyaan ilaahay wuxuu leeyahay utruku haadayni hatta yasdaliha bal labada qof u kaadiya loo dambi dhaafi maaye ilaa intay soo heshiinayaan bal waxaad qiyaastaa inta qof ay saysataan ama inta qof dhexdeena waxay yaalaan caybshiyo rag ee dumar ee qaraabo ee saaxiib ee dad aynu isku shaqeynayna ama isku shaqanay ama isku deegaan intaynu qof u naysaysanno bal hada qiyaas de qof waliba waxa laga yaabaa liisaska ilaahay inuu mid ka reebo liisaska la isugu dambi dhaafayo midiba mid kala hadhaya halkaynu ku hadhaynaa markaa hoos baynu daadagaynaa marka waa inaynu isfurfurnaa oo markaynu ilaahay cafis ka doonayno de waa inaynu inagu iscafinaa sidaa daraadeed ay aad u muhiim tahay wax kasta oo keeni kara dadku inay isnacaan ama murmaan muranka in la yareeyo oo way ama waayo maxay saa u noqonaysaa waa in aad loo joojiyaa la iska daaya waxa sideedaad oo kamida waxyaabaha qoyska noloshiisa gundhiga waa ama inuu sii jiri karo ibticaad afraad al-usrati can al-mukhaddarat qoysku inay ka fogaadaan waxa la yiraahdo maandooriyaha qaadka sigaarka tubaakada xashiishada wax kasta oo maanka wax u dhima oo aqliga caadiga wax ka bedela waa balwadaha noocyadooda kala duwan badeecaduna waa kamid laga dhugdhugsiyaa inay qoysku ka durkaan waa waxyaabaha sabab u noqda qoysku inuu burburo markuu mukhadaraadka ka waramayay nabiguna
حديث صحيح وحكون نهى رسول الله عن كل مسكر ومفطر نبي صلى الله عليه وسلم وحو ديدي وحكستو مانك الدورية قفكنا مركا دنبق قادرة ويرا تعبان كو أبورا وشيغو مرنا مرقان بو كو أبورا قفك مرنا وحو النقضاء قفك لداتو او دالة مركا وحاس شركيسا كبح مركا وحكستو بالودا والنوع عاس النبي أمد وديدي صلى الله عليه وسلم waxaynu arkaynaa ama hadaynu dib ugu noqono qisa jirta saxiix al-Bukhari ku sugan Ali ibn Abi Talib min hadith Ali ibn Abi Talib wuxuu ka waramayaa qisadaasi ay sheegaysaa murugadii ugu weyneyd baa Ali uu tilmaamaya sababtay ku soo martay inay ahayd mukhadiraad caa'iladooda dhaxdhacay mandar aragan arkakii ugu naxdin badnaa buu haabul wa Ali ibn Abi Talib oo guursaday oo Faadimo loo meheriyay xaaskiisina rasuul sala allahu calayhi wasalam oo doonaya inuu aroosto oo laba neef oo geela intoo labadaasun soo helay doonaya inuu caws ku soo qaado kadibna sidaa xaaskiisa uu kula aqalgalo waa marxaladaha uu qofku xasaasiga yahay ee xamaan urursiga uu yahay ee xiisado badan uu markaa ka baqayo waxaa dhacday labadii neef oo halkaa jooga unbaa dumar baa heesay oo khamri baa la cabay oo nabiga adeerkii Xamsa waa intii khamriga la xaarantinimay halkan uu ka soo kacayo labadii neefba waa ka gowracay wuxuu ka soo saarayba beerkiiba waxaan u yimi buu labadii neef doonay inuu raro oo labadiiba gowracayeen oo beerkii banaanka yaalo oo nabi maxamed baan u tagay sallallahu alayhi wasallam aan uga ashkatooday nabiguna uu soo kacay Xamsa aan u nimid buuri wali waa cabsan yahay waa bedelan yahay nabigii buu hoos iyo kor u eegay markaasaa wuxuu yiri hal antum illa abidun li aabai maxaa meesha ka joogtaan buu ka maraysaa soo aabahay un adooma uma yidin nabigu saa ku leeyahay sallallahu alayhi wasallam rasuulku waa kii baqday dib u guray ka baxay markuu arkay inaanu caadi ahayn marka waa tusaale un bay ka dhigan tahay waxa la yiraahdo mukhadiraadku waa waxyaabaha keeni kara dad qoysku inuu kala kaco taana waxaan filayaa dad badan oo dabadiya gudahaba jooga marka ay arkeen ana caruurteeni inta mukhadiraadka ku ibtilaysan ama la duufsadee mukhadiraadka cabta ama iibsataa caruurta kale way ka soocayn sidaa daraadeed qoyska in laga ilaaliyo deegaanka mukhadiraadka lagu isticmaalayo dadka isticmaaladana laga fogeeyo waa arrin waajib ah si qoysku aanu u kala kicin oo u kala yaacin ee uu u sii jiri karo taa aad baynu aragnay iyo daayarteeni inta jeelun ku jirtay ibtilowday arinta sagaalaad waxa weeye cadamu qatiicati dhawi al-arham waxyaabaha qoysku ku jiri karo waxa kamid ah in laga ilaaliyo in la ilaaliyo la dhowro laga badbaado laga durko qaraabo goysnimada oo haddii aad dadka qaraabada ah durkiso oo aad fogeyso intanaad isleedahay ururi ayaa iyana kala yaacaya abtiyaashi edooyinkii ayeeyooyinkii habaryarihii walaalihii ilmaaderadii wixii waad fogeyso waad firdhisay de macruurtaada ku joogaya cuquba ku dhacayse fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fil ardi wa tuqaddi'u arhamakum ulaa'ika alladhina la'anahum Allah fa asammahum wa a'ma absarahum ilaahay baa wuxuu yiri waxa u dhowdihiin oo dhaba inaad dal iyo dadba kharibtaan haddii qaraabada goysaan dadka nooca yeelana ilaahay wuu cadhooday subxaanahu wa tacaala oo indha tiro waa dhaga tiray macnaheedu waxa weeye adduun iyo aakhiraba dadkaasi way seegeen xadiid saxiixa oo ku sugan abi daawud nabigu wuxuu xusay sallallahu alayhi wasallam ilaahay baa wuxuu yiri faman wasalaha wasaltuhu waman qata'aha batatu qaraabada qofka xiriiriya anna waan xiriirin baa ilaahay qofka qaraabada gooyana waan kala daadin doonaa isaga iyo ubadkiisa iyo ehelkiisa marka odaygiiyo islaantu waxyaaba ay isku seegi karaan ama ubadku isku seegi karaan waxa kamid ah in dadkii kale ay ilaahay nagu barakayn lahaa marka aynu iyaga xidhiidhino inaguna aynu isxidhiidhin lahayn inaynu goyno taasina waxyaaba qoyska kale eri kara weey maantana runtii daayar badan waxay u baahan in la rabeeyo ehelkooda la baro si ay qaraabada u xidhiidhin karaan oo maxaynu isu nahay maxaa iga galayda aanay kaga dayanin shisheeyaha arinta tobnaad waxa weeye alxayaa fil usra
waxyaabuu qoysku ku jiri kara waxaa ka mid a xishoodka in qoysku kala xishoodo caruurta xurmayso waalidka dadka kale jaarka ay ka xishoodaan ummadda ay ka xishoodaan xishoodku qoyska dhexdiisa marka uu yahay mid sameeyo mug iyo miisaan leh oo la isku rabeeyey qoysku waa jiri karaa abi saciid allah ka raali noqday waxa uu leeyahay waa xadiidkii bukhaari ku sugnaa kaana sala allahu calayhi wasalam ashadda xayaa'an min alcadraa'i fii khidriha nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam uu ka xishood badnaa inan gurigooda un joogtoon bannaanka u bixin siday u xishoonayso isu ururinayso nebiguu ka xishood badnaa sidaa daraaddeed baa diiday iyo maya way ku adkaan jirto oo wuxuu diidayo wejigiisuunbaa laga akhrisanayay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu si gaara ugu hambaliyeynaya xishoodka inankii uu sodoga u ahaa ee cuhmaan ibnu cafaan allaha ka raali noqdo waa khulafada ka mid ahaa markaasaa nebigu waxau ihi alaa astaxyii min rajulin tastaxyiihi lmalaa'ika miyaanan ka xishoonaynin waan ka xishoonayaae nin malaa'igtu ka xishoonayso cuhmaan malaa'igtaa ka xishoota u xishood badnaa dee aniguna waan ka xishoonayaa walxayaau shucbatu min aliimaan nebigu calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mida baa wuxuu arkay xadiidku bukhaari buu ku sugan yahay nin reer ansaareed ah qoladii reer madiina walaalkiibuu la hadlaya wuxuu ku canaananayaa xishoodka siday dadka qaarkood waa adiga arkayoo war ma dumar baa maa maxay muxuu yahay xishood badana sidanunbuu leeyahay u canaananaya marka ninkiibuu nebigu ka dhiciyey oo waxa uu ku yidhi dachu faina alxayaaءa min aliimaan war adeer iska daabo xishoodku iimaanku ka mid yahaye ha canaananine iska daa macnaha waxa weeye xishoodka wixii xun laga xishoodo laakiin shayga xaqa ah weydiintiisa iyo ku dhaqankiisa iyo ku faanidiisa isaga lagama xishoodo xadiid kaloo muslim ku sugnaa nebigu waxau uhi alxayaau khayru kullu xishoodku dhammaantii waa khayr waa xishoodkaa wanaagsan alxayaau laa yaأtii ilaa bikhayr bukhaari buu ku sugan yahay xadiidkaasina khayrku xishoodku khayrun buu keenaa waxba yaan la isku ceebanin yaan la isku canaananin xishoodka wixii xun laga xishoonayaa idan markaa arrintaasina xishood la-aanta ama xaaraanta in loo arka ma aha firfircoonaan iyo ilbaxnimo iyo fariidnimo ma aha laakiin wixii xaaraana waa in laga xishoodo dadkuna ay ka gaabsadaan qofka muslimkii karaamuu leeyahay xurmuu leeyahay waa waxyaabaha qadarinta keena inay qoysku isku duubnaadaan markuu ka yarina ka weyn weyneeyo ka weynina ka yar u naxariisto saynu xusi doonno waxyaabaha muqawamaadka waxaa ka mid ah arifqu waraxma in ay taallo goobtan dabacsanaan iyo naxariis ilaahay baa ku ammaanay nebiga laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canitum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim rifqi waa in dabacsanaani taalo oo odaygu ubadkiiyo oorida u dabacsan yihin iyaduna sidoo kale ubadkuna waalidka saas oo kale ehelka saas oo kale dad dee dabacsan oo subkan oo isu subkan waa inay yihiin caaisha waxay leedahay maa khuyira amrayni ila اkhtaara aysarahumaa maa lam yakun ihma nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam mar kastoo laba arrimood la doorgeliyo ka dabacsan buu dooran jiray waxaa caaisha iyadoo ka warramaysa dhaqankii nebiga calayhi salaatu wasalaam maalin ay qof yaro huruuftay buu nebigu la hadlayo wuxuu uhi yaa caaisha faina allaha yaa caaisha urfuqii faina allaha idaa araada biahli beytin khayra adkhala fiihim الrifq xadiidkaas saxiixa ah ee saxiixu tarkiib ku sugan caaisha markuu ilaahay qoys la doono khayr u fiirso dhexdooda wuxuu soo geliyaa dabacsanaan aabbo hooyo walaal edo habar yar xabiibi erayadaasaa isweydaaranaya laakiin tii aynu odhan jirnay nin iyo gabadhii col xaaskiisu colna maaha nabadna ma aha dee maxay yihiin haddaa waa yacyacoode wax labadaa u dhexeeya colna maaha nabadna maaha haddii la idhaha inaanay nabad ahayn unbay u badanta marka rifqiga shayga la idhaahdo iyo dabacsanaantu waa waxyaabaha koriya ee khayrka u yeela sidaa nebigu inoo sheegaya calayhi salaatu wasalaam qoyska
حديث كلام مركا يسقنا صحيحة في الأدب المفرد كسجن وحا من حديث عائشة نبي وحول إن الله يحب الرفق في الأمر كله إلهي وحج عليها أرمها إن تبع سنان لقدره تبع سنان يدورد إن أرمها لقدره أيو إلهي سبحانه وتعالى جعليه وحي إلهي جعليه إنه نجونا شعلانوي مركا ولا لا الكسر دوانه مقومات كأي أساسيات كقيس كجندي جوا لبعض الرماد بكسور ريا مركا وهو الرئيس لبعض قف أي نرى الوضع بلا بيان إلا هو شراك ددي الدنيا بقى يا الدنيا آخرة بكشراك وبين إلى آخرة وضع الصعنايا لبعض قف مركا نرى شعر السيان وين استورش شرته والله لبعض قف أي استورتان iyadana diiniya waxa lagu dooranaya akhlaaq isagana diiniya akhlaaq fadfar bidaati diini bu nabi xadiidkii saxiixayn ruuxa dumarka ah ee diinta la kulliibaan isagana sidaas oo kale ba xadiidkii tirmidhi xasan ka nabigu waxa uu yiri qof diiniya dabeecad wanaagsan li markuu idin yimaado dee dumarka siiya oo inanta u guuriya iyadoo la odhanaynin lacag muxuu haystaa baasaboorku haystaa wacaynki qoladee buu yahay yuu yar yahay mise uu weyn qofka hal eega diintiisa iyo dabeecadiisa buu nabigu leeyahay sallallahu alayhi wasallam waa shayga lagu miisaamay marka labadan qof waa in isdoorasho jirtaa oo duduucis iyo dabakariix iyo in la isku qasba aanay ahayn oo raqbadii iyo abateed iyo doorasho iyo jacayl waa inuu meesha yimaado oo qofkii hadhowta aanu ku marmarsoonin kuwa baan doonaynin waa la igu ka qasbay iyo waa la igu ka duceeyay taas waa qodobka labaad ee inta horeynu soo sheegnay tobaneeyada shay soo ururaya waxa weeye an yacrifa kullu minhum alhuquuq walwaajibaat labadooda mid waliba waa inuu gartaa maxaa waajib saaran muxuu isagu xaq leeyahay ooridu waa inay garanaysaa ninkeeda maxay xaq ku leedahay oday waa inuu garanayaa xaaskiisa muxuu xaq ku leeyahay maxaa isaga lagu leeyahay waa casharo u baahan markay isguursadaan labadan qof inay qaataan oo sidooda ay u qaybaan oo ay dhaqan galiyaan mararka qaarkood baa waxa dhacda qofku inuu qofkan kale ku qabsado waxaanu xaq ugu lahayn ama uu dafiruu diido wax waajib loogu leeyahay taasina waa arrin qoysku inuu sii jiro sabab u noqon karta إلهي بأوحر ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة لبادي قف إن حق كل ينبا إلهي وتلمامية رقوا مد إرادة هذا درجة التكليف بأو بدنت وكوا إرادة علباد نكينا حل باسارا أريدنا حل باسارا حل كالرقا سيوي حق حرمها ولا جيابا مرك قاركود لكن حل كالرقا سي بدن الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وحلكي صارنا إلى هاوشيا دمرك حلكي صارنا يهوشو تالينا وحر فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله ودمرك يقول أقبل كان يا إلى هاوكو أماني نحا قرآن كو شيء يا الرمان سداد رادد وعشر آذو بهاني لو دراسي xuquuqda qaar ka dhaxaysa jirta iyo qaar rag ay gaar u leeyahay oo ninku gaar u leeyahay qaar xaasku ay gaar u leedahay iyo qaar ay caruurtu labada waalid ku leeyihiin ama labadooda waalid haday la joogaan ay caruurtooda xaq ugu leeyihiin مثلا tusaalun waynu dadajinaynaa xuquuqda ay xaasku ninkii ku leedahay waxa kamid ah meherkii mar alla markii la meheriyay ee la guntay ayay meher yeelatay aqadka xalaaleynta ayaa waajibiyay وآتوا النساء صدقاتهن نحلة إلهينا جيتكي رجل لورن جري wuxuu faray inay dumarka siiyaan xaqooda oo meherkaas waxay xaq u leedahay nafaqadii وإننا سو آخرين لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق بما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا هيدا إلهي وحو كغا ورميا qofku wuxuu hayay inuu ehelkiisa siiyo waa ragi hadii arinku adeegayna ilaahay baa ku dabcin doona ee waxba ha ku la xajeclaabino ha ka haysan
waxa kamid oo raggii lagu leeyahay xaasku ay leedahay xusnul cishra inuu si wanaagsan ula dhaqmo oo qofkan qalbigiisa iyo dareenkiisa iyo moralkiisa iyo jacaylkiisa iyo intaba inuu ilaaliyo waashiruhunna bil ma'ruf ilaahay baa amar ragga siiyo wuxuu si wanaagsan ula dhaqmo dumarka si wanaagsan ula dhaqmo waa arin dhaafsan galma iyo gasiin iyo gogol iyo dhar iyo dhuun iyo waxa way ka dheertay waa qofkan oo lala noolaada fil afraahi wal ahzan murugada farxadda isla jaan qaadi karo waxay xaq u leedahay cadaalad hadii dumar uu wada qabo mid ka badan waxay xaq u leedahay tarbiya oo qofka ninkii inuu tusaale wanaagsan u noqdo ooridan markuu soo guursaday uu dhaqanka wanaagsan iyo cadaaladda iyo runta iyo cibaadada iyo diinta iyo cilmiga iyo arrimo inuu ku rabeeyaa xalaga abadee inay ninkeeda eeganayso waa inaan cusub imikay soo biirtay isagii baa dib u dajin ku sameynaya marka sidoo kolba noqdaabaa laga yaabaa inay iyaduna noqoto marka waa inuu qofkii hormuud u noqdaa oo si fiican u rabeeyaa difaac baa xaq loogu leeyahay difaac usradiisa cidii dulmiyaysa cirdigooda iyo sharaftooda xudhimaysa ku soo duulaysa shisheeye sokeeyaba inuu difaaco isaga xaq lagu leeyahay silatu rahimiha qaraabadeeda inuu xiriiriyo ayaa xaq loogu leeyahay oo aanu odhanin maxay ahaan qoladani waa aabbaha iyo hooyaday reer naag baa ka raacda baa la yidhi maxay ga daba socdaan way ku daba soconayaan waa aabba iyo hooyo kale ku soo biiray ehelkeeduna waa ehelkaagi xageed kaga tagaysa waaba koox cusub oo ku soo biirto laga yaabo inay kugu biiriyaan waxaan reerkiinuba kugu biirinba arrimaha todobada waa kuwa u waaweyn xuquuqda iyadu leedahay xaqa uu ninku ku leeyahay hadaynu soo noqono shantana u waaweyn ataaca aqbalkeen oo de qoyskan shuraakada ah ee nolosha wada way wada tashanayaan arrimaha way hinjinayaan hareeraha ay haayaan tazawwaju alwalud alwadud nabigu waxa uu leeyahay calayhi salaatu wassalaam dumarka guursada ninkeeda jecel dhalaysa macnaha dhalmada badan buu leeyahay rasuulku sallallahu alayhi wasallam ila ubadkuna waxyaabaha jacaylka keenay kamidi ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إنه مدبك كلا نحريس يتشعيل لبضع بسبوها إنه وضع صعلاني نحذو ديالان حفظ بقى لو قبائن حفظ الشيء يقل كيو بحيو أرساقد دي بودون حلاشة هيدو بعد كي برفكو مرة يحلك علوص باصارا إذا حفظ بقى لقول لي حافظات للغيب بقى لهو marka nafteedii bay ilaalinaysaa ubadkii adduunkii aqalkii amaaladii bay ilaalinaysaa tarbiyatu alawlaad sidoo isagu baa rabaayada u qaabilsanaa qaybtiis iyaduna waa madrasad dhan waa tii ubadka rabaynaysa soo saaraysa inay iyaduna sida ay u dhashay ay ugu rafaaday waa inay aqligooda iyo caadifadooda aqeedo wanaagsan iyo cibaado ilaahay ku soo kabcisaa caruurta marka tarbiyada ubadkana inay tuurtay ka dhaqaajiso xaq uma lahayn inay qaybtii kaga aadanayd soo rabayso silatu ahli waxa iyaduna sidoo kale ehelkiisa inay xiriiriso oo aanay odhanin hay tusin hooyada aabbaha hay tusin reerkiina hay tusin anigu waxaan rabaa nin ana biyo hooyo midnaba lahayn iyo wax daba socdo toona ha odhanin ilaahay waxaad ugu cibaadaysataa oo aad ilaahay ugu dhawaataa samafalka aad ninka ehelkiisa u samafalayso markaasuu jacaylkii uu adiga kuu qabay iyo farxaddii iyo nasashadii uu kugu nasanayay wehelkii markaasuu badanaya ragga qaarkood baa laga yaabaa inay idhaahdaan xaasku waa laga yaabaa aniga iima dara laakiin ehelkayga u fiicantay mar hadday ehelkayga u fiican tahay ama ubadka u fiican tahay anigu waxaan doonaba aan ku qabe waan u samrayaa iyaduna asaas oo kale marka waa in si guud marahun baynu u sameynay ama aynu u dadajinay xuquuqdaas baa ugu muhiimsan kuwa ay ninka iyo xaasku isku leeyihiin istimtaaci baa isaguna kamid oo labadooda ka dhaxeeya oo midiba kan kale inuu asturo oo galmadii iyo raaxadii ka dhaxaysay inuu midiba ka kala asturo waxyaabaha la isu guursadaabay kamid tahay gudashada hamadu marka inaan hakrasha imanin oo iyaduna diidin isaguna aanu diidin oo labada qof raaxadooda ay qaataan sharcigu xalaaleeyay ila maqaasida guurka laga leeyadu waa 10 kale waa in la xaqiijiyaa xuquuqdiina waa kamid marka labadan arimood u dambeeyay labada qof inay isdoortaan xuquuqdana ilaaliyaan
muqawamaadkaa hore aynu soo sheegnay iyo waxyaabaha asaasiga ah labadaasay soo hoosgelayaan idan waxaynu arkaynaa baabkan inaanu baab fudud ahayn marka in arrimahan la ilaaliyo ee sidaa sharcigu u dhigay daliiladaasina barayaan loo ilaaliyo waxaan rajaynaynaa inaynu cid walba ka ilbaxsannahay oo cid walba aynu ka xadaarad badannahay oo cid walba aynu ka dixiinsanno aynu ka debacsannahay oo inaan u baahnayn dad kale oo shisheeye ah inaynu nidhaahno kuwaasaa romansi lah iyo kuwaasaa sidan yeela oo aynaan waxba afka kusii taagin kol haddaynu qaadanno nidaamka wanaagsan islaamkeenu inoo dhigay waxa cabashaahe maanta jiraa way yaraan lahaayeen ilaahayna waxaan ka baryayaa aniga iyo idinkiiyo innaga dhammaanteen intaa aynu xusnay iyo inta kale inoo hadhayba inuu ilaahayna waafajiyo oo aynu qaadanno raaxada iyo sacaadada adduunyada iyo ta aakhiraba وهذا ما أقوله وأستغفر الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته